إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت ولعمري عن قليل كل من فيها يموت. محاضرة ugu horeysa waxaa inoogu qoran fadiilat الشheikh أبو بكر حسن مالم ciwaankeeduna waxa uu yahay alhimmatu alcaaliya wa atharuha cala alfardi walmujtamac. sheikha ayaa markan aan ku wareejinaya mikrofoonka. bismi illaahi الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه ترك لنا على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فسلك السعداء من أمته على نهجه القويم وضل عنه الأشقياء. وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ويقول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى. ويقول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه أيضا إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. رواه الطبراني في معجمه وحسنه نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أيا دمانتين أن وقمها دعلينا نعم كفرها بدن إلهي النقش بي سبحانه وتعالى وأهل أنن وأهين لكن إلهي فضل كيسا إحسان كيسا يجود كيسا أي إلهي ونقولنا من نيستي سبحانه وتعالى. وهكذا نمهد علينا جمعية أنصار القرآن الكريم في الصومال وبرنامج كان باللوغيسي إلى مرحلة هذا قروح بدن ومريو كشقيي مسكح ذي iyo maalkoodii iyo muruqoodii bay isugu geeyey intan oo dad mu'miniin ah iyo qaybaha kale ay gaari doonaan muxaadarooyinka faraha badan ee culimmadu ay noo soo jeediyeen inay ka faa'iidaystaan intan oo dhan juhdi ku bixiyey jamciyadda ayagana waan u mahad celinaynaa jazaahum allahu khayran jaziila wajacala hadihi aljalsa fii miisaani xasanaatihim. waxaa kaloon yani u mahad celinaynaa sheekheena sheekh cismaan xidig oo runtii marka horeba abuurka horeba iska lahaa fikradda dhan curinteeda oo irshaadaadkiisa iyo tawjiihaadkiisa meeshaba loo yimid. ilaahay sheekha isagana abaal weyn ha ka abaalmariyo caafimaadkiisana allaha badiyo cafiya caafimaad iyo ridaa uraxmaan iyo cumri mubaarak ilaahay sheekha ku arsuqo. waxaan kaloon u mahad celinaynaa dhammaan intaa ka qeyb qaadatay dowladan hagaajinteeda iyo quruxdeeda walaalaha nagala qeyb qaadanaya duubista kaamirooyinka iyo qalabka lagu duubayo guud ahaanba soo diyaariyey iyo walaalaha khidmeynayay ee saddexdaa maalmoodba shaqada u taagnaa dhammaan in sha allahu tacaala ilahay waxaan ka rajaynaynaa ajir fara badan inuu ilaahay naga siin doono biidni illaahi tacaala. muxaadaradan ciwaankeeda walaalayaal sida walaalkay inoo sheegay waa alhima alcaaliya wa atharuhaa cala alfardi wاlmujtamac. himada sare iyo saameynta himada sare ay ku yeelan karto qofka shaksiga ah
iyo bulshada manaaficda iyo miraha ay ka guran karaan himma caaliya markay meesha ay timaado. run ahaantii walaalayaal mawduucan waa mawduuc ahamiyad weyn iska leh, walidaalika culimmada waxay yidhaahaan maa najaxa man najax ilaa bitaxqiiqi hada almawduuc alhima alcaaliya wamaa saqada can alxayaati man saqad ilaa bidunuwi اlhimma aw bidacfi اlhimma. waxay yidhaahaan culimmadu qof najaxay haddii aad aragtid oo adduunkiisa ka mid noqday dadka marmuuqiinta ah aladiina yushaaruuna ilayhim bilbanaan, dadka faraha lagu taago xagga ammaanta iyo waxyaalaha adduunka ay ku soo kordhiyeen, iyo aakhirada dadka ku najaxay oo ilaahay ridihiisa gaaray, waa dadka xaqiijiyey mawduucan alhima alcaaliya. qof aan himo caaliya a lahayn adduunkana waxba kama qabsan karo, aakhirana xataa janno ma galo. qof aan himo caaliya lahayn waxay yidhahaan wamaa saqada can alxayaati man saqad ilaa bidunuwi اlhimma aw bidacfi اlhimma. qof haddii aad aragtid noloshan ka dhacay oo wax mataro adduunka ku noqday oo waxuu qaban karaa haysan jirin, naftiisiina dayacay, ummaddiisii mas-uuliyaddu ay ka saarnaydna dayacay, wuxuu ku dayacay isaguna muraalkiisoo liita iyo hamigiisoo daciif ah ayaa isagana meesha dhigay. khulaasada mawduucu waa intaas. qof najaxay ma najixin ilaa wuxuu lahaa hima alcaaliya. qof dhacay ee nolosha ka dhacayna ma jiro ilaa muraalkiisaa daciif ahaa, hamigiisuna wuxuu ahaa hami aada u liita. walidaalika sheekhan la yidhaaho abulfaraj ibn اljawzi kitaabkiisan sayd اlkhaadir markuu ka hadlayey himada iyo saameynta qofka ay ku leedahay, isaga wuxuuba ka dhigay ibn اljawzi himadu inay tahay miisaanun licaqli اlinsaan wa lisalaamati qalbih wa طabiicatih. wuxuu ka dhigay ibn اljawzi wax lagu miisaamo muraalka sare ama hamiga sare, qofka insaankaa caqligiisa ayaa lagu miisaamaa hima caaliya. oo waxaa la yidhaha qofku hadduu himo sare uu xambaarsan yahay, taasi waxay daliil u tahay caqligiisu inuu wanaagsan yahay oo mustawihii la rabay oo qofka bini aadamka inuu garasho iyo dareen iyo xilkasnimo uu ka gaaro laga rabay, inuu mustawihii la rabay uu marayo haddii hamigiisu uu sarreeyo qof oo muraalkiisu uu dhisan yahay. laakiin wuxuu yidhi sheekhu haddii qofka alhima alcaaliya laga waayo oo muraalkiisu uu iska jaban yahay, daciifu shaksiya yahay, uu aaminsan yahay inuusan mujtamacan waxba ka bedeli karin, naftiisii xataa yacni uusan ku soo kordhin karin noloshiisii khadwa ila alamaam, hal tilaab uu hore u qaado xataa inuusan waxba ku soo kordhin karin hadduu aaminsan yahay, haadaa daliilun calaa dacfi caqlih wa maradi qalbih. taasi waxay daliil u tahay caqliyadda uu xambaarsan yahay inay tahay caqliyad aada u liidato daciif, qalbigiisuna uu yahay qalbi mariid ah oo uusan ahayn qalbigii ilaahay uu doonayay subxaanahu wa tacaala. marka miisaanuu ka dhigay. walidaalika ibnu اljawzi raximahu اllahu tacaala kitaabkiisa sayd اlkhaadir wuxuu ku leeyahay min calaamati kamaali اlcaqli culuw اlhima. calaamada iyo astaanta lagu garan karo caqliga waa qofka hamigiisa iyo muraalkiisa inuu sarreeyo. qofka caqligiisa inay wax ku jiraan oo ash uusan ahayn caqligiisana waxaa lagu garan karaa suquud اlhima wa dacfuhaa, hamiga uu xambaarsan yahay oo daciif ah. lidaalika sheekha wuxuu ka sheekeeyey markaa kabacdi humuumta uu xambaarsanaay, waxa uu hamiyi jiray iyo waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay ilaa aakhiri cumrihi, hamigiisa in ilaahay uusan ka qaadin oo weligii uu siday yacni muraal aada u sarreeya ayuu wax badan uu sheekhu sheegay raximahu اllahu tacaala. alhima alcaaliya inta aanan gudaha u gelin mawduuca
waxaan ka hormarinaynaa tacriif muujaz ah maxaa yeelay mawduuca waxaa wanaagsan qofku inuu tasawur uu ka haysto intuusan dhex gelin mawduuca alhima alcaaliya maxay tahay alhima alcaaliya culimmadu waxay ku qeexeen oo ay ku tacriifiyeen waa istisgaar maa duuna الnihaaya min macaali اlumuur istisgaaru maa duuna الnihaaya min macaali اlumuur qofku markuu arrin weyn inuu qaban karo oo horumar naftiisa uu gaadhsiin karo bulshadana uu horumar gaadhsiin karo wax ka bedeli karo markuu qalbiga ku qabto kabacdi haddana waa inuu liido ama uu yaso caqabaadka ka hor imanayo o dhan uu yidhah waxba ma ah oo ka gudbi doona haddii yacni ahdaaftiisa uu isagu cabirtay cabirkaa fog wax ka hor imaanaya ama ka tashwiish gelinaya ama hamigiisa dilaya markuu arko inuu yidhah waxba ma aha oo iska yaso caqabad walba soo wajahda inuu yidhah waan ku guulaysan doonaa cabirka anigu noloshayda aan qabsaday waan ku guulaysan doonaa waa inuu yidhaah oo wax kastoo soo wajaha acdaa uu yeeshay cadawaa soo wajahay oo markaa doonaya in ay hamigiisa ay dilaan inuusan ahdaaftiisa ku guulaysan dad waxa isku dayaya caqabaad u dhigaya waa inuu yidhah waxba ma aha waxaas ilaahay uu gaarsiin doonaa rabbi uu ku kalsoonaado subxaanahu wa tacaala caqliyadda ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala iyo mawaahibta ilaahay uu ugu deeqayna uu ku kalsoonaado markaa kabacdina uu aaminsan yahay caqabaadkan inuu ka gudbi doono waxbana aysan ahayn laakiin qofka hamigiisa uu liito waxaa lagu yaqaanaa waxaa taraanturin kara ahdaaftiisiina ka weecin kara oo ka leexin kara qob moosa qofkii u dhiga hal qob oo moosa qofkii u dhiga iska daa inuu caayo iska daa inuu dagaal ku qaado iska daa inuu weeraro qob moosa haddii loo dhigo bis sariirtuu jiifta bas wey kun cadawaad yeelata hal qof xataa hadday ka hor timaado wuxuu ka dhigi yacni yuqiimu dunya walaa yuqciduhaa adduunyadii oo dhan uu istaajinayo wuxuu leey adduunka dhan a igu kacsan bas wo waxba ma qaban karo marka hal qofaa maanta ka hor timid waxbaa laga sheegay ahdaaftii iyo cabirkii uu haystay ayaa laga hor yimid sidaasaa tahay iyo waxba ma qaban kartid iyo nin naacasaa tahay iyo mumayizaadkaas ma lihid iyo hal qofaa la hadlay bis yuqiimu dunya walaa yuqciduhaa adduunyadii oo dhan wuxuu ka dhigaa inay ku wada taagan tahay weligeedna ma fadhiisanayo adduunyada weligeed waa laygu kacsan yahi ley idan marka qofkaas waa qof hamigiisa uu aad u hooseeyo oo daciif ah oo lagu hantaa turin karo qob moosa haddii loo dhigo xataa bal iska dhaaf ciidan iyo cadow in lagu kiciyo iska dhaaf kaasi marka waxay daliil u tahay qofka caqliyadiisu uu xambaarsan yahay inaysan nadiif ahayn ay taasi tusin walidaalika ibn اljawzi raximah اllahu tacaala marka humuumtiisa uu ka hadlayay uu xambaarsan yahay xilligii cilmiga uu baran jiray ibn اljawzi wuxuu yidhi low qultu anii طaalactu 20,000 mujallad ma kana kahiira fii awaani طalabii lilcilm haddii hadda aan idin iraaho 20,000 oo mujallad ayaan cabir ka dhigtay inaan daalacdo xilligii cilmiga aan baranayay ma badnu yidhi wax badan ma ah 20,000 waan daalacdo u yidhi ibnuljawsi 20,000 oo mujallad weliba sheekhu ma aha xilligii uu ku bislaaday cilmiga oo mudaris uu noqday waa xilligii dalabka uu ku jiray cabir waxaan ka dhigtu yidhi 20,000 oo mujallad inaan daalacdo hadafkaygiina waan ka xaqiijiyey oo waan ka run sheegay waa qofa maanta yacni nolosheenna dhan waxaa laga yaabaa 20,000 oo mujallad wax u dhow inaanan xaqiijin oo inaan taalacan oo qof walba uu kitaabka waxaa laga yaabaa intuu sidan u kala bixiyo haddii mujalladaadkiisu ama safaxaadkiisu ay ku bataan oo uu yidhaaho safaxaadka kitaabka waa 100 waa 200 oo bage yaa waxaan qaban kara waxan yaa qaban kara de waxan yaa qaban kara hadduu qofku ishor dhigay oo u dhammaatay waxay daliil u tahay caqliyadiisu inaysan nadiif ahayn waxay daliil u tahay xataa ilaahay yacni inuusan awooddiisa iyo mawaahibta ilaahay uu siiyey inuusan xataa ku kalsoonayn maxaa yeelay marka la diraasaynaayo asbaab dacfi اlhima qofka muraalkiisa inuu jaban yahay
maxaa tusinaya marka la daraasaynayo waxaa la yidhaahaa asbaabta waxaa lagu tiriyaa dacfu liimaan. qof himmadiisu jaban tahay, moraalkiisu jaban yahay, noloshaada waxba kama bedeli kartid, ummaddaanna waxba kama bedeli kartid. qofka aaminsan culimmadu waxay yidhaahaan waxaa ku jira dacfu liimaan, iimaankiisa daciif ah, rabbiyuusan ku kalsoonayn subxaanahu wa tacaala. maxaa yeele caalamkan waxaa iskale rabbigaa iskale subxaanahu wa tacaala, waa facaalun limaa yuriid, wuxuu doonuuna sameeyaa rabbi subxaanahu wa tacaala. allana waa allihii yidhi ana cinda danni cabdii bi, anigu mar walbaba addoonkayga waxa uu iga malaysanayo ayaan ahay. marka maladaada maxaad u daciifina adigu? maxaa luuq ku geliyey? maxaa hul ku geliyey? maxaa nolosha kaa riday? ilaa hadduusan kugu jirin dacfu liimaan, oo rabbi subxaanahu wa tacaala inuu intaas cabirkaaga iyo ahdaafta aad samaysatay inuu kuu xaqiijin karo haddii aadan yacni ku kalsoonayn rabbi subxaanahu wa tacaala. walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa aaduu inoogu booriyey moraalka inaanu dhisno. nabigeennuna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi axaadiis fara badan ayuu nagu booriyey moraalkeenna inaan kor u qaadno, oo mustawaheenna aanu kor u qaadno, oo hamigeenna aanu ka dhigno hami xidigaha maraya aan ka dhigno. nin gabyaaya hadda ka hor wuxuu yidhi idaa maa kunta fii amrin maruumi falaa taqnac bima duuna الnujuumi. idaa maa kunta fii amrin maruumi, arrin haddii wuxuu yidhi aada niyeysanayso ood cabir samaysanayso, falaa taqnac bima duuna الnujuumi, xidigaha meel ka hooseysa cabirkaagu yuusan noqon wey. idaa maa kunta fii amrin maruumi falaa taqnac bima duuna الnujuumi, cabir haddaad samaysanayso xidigaha meel ka sokaysa ha cabiran wey. laakiin cabirka haddaad isku yarayso oo maalan adigoo taalibulcilmi aad tiraahid lama baran karo naxwahan iyo luqadan wax la sheegayo iyo fiqhiga iyo kitaabka manhaajka oo aad safaxaadkiisu u badan yihiin oo weyn iyo tafaasiirtii iyo umahaatu sita iyo intaas cabirkaygu ma gaari karee bal xoogaa abuushujaacley aan iska noqdo, abuushujaacley aan iska noqdo, safiintay abuushujaac aan isaga gaabsado. manhaaj anigoo kale layguma talagelin, dadka waaweynaa loogu talagalay, maskaxdoodu furan tahay, adigiigaaba isdilay. adna siduu rabbi kula dhaqmaa subxaanahu wa tacaala, ilaahay qalbigaaguu daalacanaa subxaanahu wa tacaala. ana cinda danni cabdii bi. haddii qofkii uu mujtamacan uu is yidhaaho wax ka bedel, hadduu cabir meesha soo dhigo tilaabtaad qaaddo waa lagugu dili. dugsi haddaad meeshan ka furto maya dugsigan waxa weye dad cadow ku aha degan xaafadan ashma ah waa lagu dili. meel kaleu haddana ka furis yiri midaa haddana ilaa shaydaanka naftiisa dacfulhimaha waa jeceliya, qofka himmadiisa daciifya aad uga faa'idaystaa waa jeceliya. ilaa wuxuu rabaa shaydaanku inaan waxba la qaban, waxba inaan la qaban uu rabaa. meel kaleu haddana dugsi ka furis yiri, shaydaanku qofuu marka usoo saaraa afkiisa ahdaaftii uu lahaa, markaasuu qof inta ka hor yimaado wuxuu leeyahay maya meeshaana qofaa joogta, qofku u kacsanaa joogta meesha, hay ma jirto, bal guri aan iska galo hadde marka bis wey. marka wax la qaban karo oo waddankan laga qaban karo iyo wax laga samayn karo haba yaraatee ma jiraan. waa caqliyad aad u daciif u ah, waa hami aad u liita. walidaalika rabbi subxaanahu wa tacaala wuu jecel yahay qofka hamigiisa uu sarreeyo. nabigeenna inoo sheegay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii dabaraani uu warinayo khudbada hadda aanu ku bilaabanayno iftitaaxa, oo weliba nuuruddiin alhaythami raximahu llahu tacaala kitaabkiisa majmacu zawaa'id uu isnaadka xadiiska ku taxsiiniyey, ayuu nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu wasalam wabaaraka calayh ina allaha yuxibu macaaliya alumuur wa yakrahu safaasifaha. ilaahay wuxuu jecel yahay macaaliya alumuur, arrimaha sare in laga fekero ilaahay uu jecel yahay subxaanahu wa tacaala. marka hamiga sare waxbaad qaban kartaa, ummadda waxaad noqon kartaa dadkeeda ugu horhoreeya, awaa-ishaad noqon kartaa, aakhirana kuwa ugu horeeyaad noqon doontaa biidni illaahi tacaala oo jannada gala. dadaalna aad ku darto, sidaas ilahay waa kugu jecel yahay subxaanahu wa tacaala. waxaadna ku heli maxabada ilaahay oo wax la mida aysan jirin. maxabada jacaylka ilaahay ayaa taa ku heli.
aayaddii hadda aanu ku furfuranaynay khudbada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhahayay faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru llaha kadikrikum aabaa'akum aw ashadda dikraa famin annaasi man yaquulu rabbana aatina fi اddunya wma lahu fi اlآakhirati min khalaq وminhum man yaqulu rabbana aatina fi اddunya xasana wfi اlآakhirati xasana waqinaa cadaab الnar ulaa'ika lahum nasiib mima kasabuu wallahu sariicu اlxisaab. aayadahaas markaad fiiriso waa aayado qofka ku boorinaya hamigiisa inuu sarreeyo moraalkiisuna uu sarreeyo, waa aayado la dagaalamaya qofka hamigiisa uu liito. maxaa yidhi alle subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay aayadahan inoogu sheegay laba qof marka ilaahay wax laga rabo oo ilaahay wax laga doonayo dadku labay u qaybsamaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi dadka waxaa ka mid ah qofka markuu alla wax weydiisanayo dhahaya man yaquulu rabbanaa aatinaa fi اddunya, ilaahu adduunyadan wax igu sii, ilaahu biilkayga isii, ilaahu dharkayga maaragtaa yacni dhar isii, ilaahu zawjo isii, ilaahu guri isii, ilaahu yacni laa yujaawiz hamahu laa yujaawizu hamuhu farjahu wa batnah, calooshiisa kama gudbo hamigiisa. rabbanaa aatinaa fi dunya bes. ummad wax u qabo, diin wax u qabo, rabbigaa rido geli, jannatulfirdows iyo yacni mustaqbalkaaga aakhiro dhis, waxaasi shaqo kuma laha. hadduu fekero waa adduunya fikirkiisu, hadduu ducaysto waa adduunya ducadiisu, hadduu yacni khawaadirtiisa uu dhaqdhaqaajinayo waa adduunya wuxuu ku dhaqdhaqaajiyo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wamaa lahu fi اlآakhirati min khalaq, qofkaasi wax nasiiba aakhira kuma laha. ilaahay agtiisa wuu ka dhacay qofkaas, wuxuu noqday cabdun laa yujaawizu hamuhu batnahu wa farjah, qof addoon wuxuu noqday hamigiisu caloosha uusan ka gudbayn. soomaali haddaan nahay waa la ysku cayaa, waad ogtihiin, waxaa la yidhaha hebel waa caloosha u shaqayste. cay uma dhimana qofkaas. qofka haddii la yidhaha waa caloosha u shaqayste, yacni maxay tahay macnihiisu? dan kale adduunyadan ma rabo inuu ka xaqiijiyo ilaa calooshiisa mooye. qolo kaleu ilaahay tilmaamay wa minhum man yaquulu rabbanaa aatinaa fi اddunya xasana wa fi اlآakhirati xasana waqinaa cadaab الnar ulaa'ika lahum nasiibun mima kasabuu. qoladaasuu ilaahay ammaanay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi dadka qeyb ka midana markay wax iga doonayaan oy hami ay doonayaan inay xambaaraan adduunya aakhiraba inuu ku liibaanu raba. rabbanaa aatinaa fi اdunya xasana wa fi اlآakhirati xasana, hamigiisu waa sidaas. ilaahu adduunkana nolol wanaagsan oo sharaf badan ayaan ku weydiisan, aakhirana nolol wanaagsanaan ku weydiisan u leeyay. muxuu rabaa? adduunkana dadka ugu wanaagsan oo ilaahay u nicmeeyey inuu ka mid noqdo, aakhiradana sufuufta ugu horeysa ee jannada gelaysa inuu noqdo, labadiiba inuu ku najaxuu rabaa. dadaalkeediina wuu ku jiraa, niyad aha, dadaalkeediina wuu ku jiraa. maxaa yeelay haddii hamiga aan la xaqiijin wuxuu isku bedelaa amaani iyo khayaalaad iyo wax axlaamahe calwasaadoo lagu ru'yooday. lama rabo hamigaaga cabirkaaga markaad meel sare ku qabanaysid inay axlaam isku bedelo, lama rabo wax calwasaad ah. maxaa le waad aragteen qofka hadduu calwasaadayo habeenkii waxaa laga yaabaa daaro dhaadheer isagoo ku dhex jira oo qurux badan oo intaasoo maaragtaa yacni nicmo agtiisa ay taallo inuu isaga ruyoodo. subaxii haddii yacni waagu uu baryana waxba kama hayo, waa axlaam. marka hamiguna qofku inuusan axlaam ka noqon hamiga caaliga ah waa laga maarmaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwaa wuxuu yidhi ulaa'ika lahum nasiibun mima kasabuu, kuwaasaa nasiib ku yeeshay waxa ay kasbanayaan. kasab fiicanay hayaan, hami fiican ayay hayaan. lidaalika alle subxaanahu wa tacaala markuu ka sheekaynayey humuumu alambiyaa waarusul, ambiyadii iyo rusushii hamiga ay xambaarsanaayeen, nabiyullaahi sulaymaan ayuu ilaahay ka hadlay subxaanahu wa tacaala. qaala rabbi ikfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi inaka anta alwahaab. bal ducadiisa fiiri nabiyullaahi sulaymaan. markii hore wuxuu hormariyey rabbi ikfir lii, waa aakhiradiisii, waa jannadiisii, waa ridihii ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahu ridahaaga iyo makfiradaada iyo jannadaada ilaahu ii xaqiiji.
muxuu ku daray kabacdi wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdii inaka anta alwahaab ilaahu intaas haddana waxaad iigu dartaa dembi dhaafka iyo aakhirada mulki inaad isiiso boqortooyo adduunyo laa yanbagii liaxadin min bacdi cid u habboon iyo cid gaari kartaa aysan jirin mulkiyad adduunyana waan kaa rabaa mulkiyad adduunyana waan kaa rabaa intiiba ilaahay waa isugu daray fasakharnaa lahu riixa tajri biamrihi rukhaan xayثu asaaq washayaaiina kula bannaa'in wagawaas وآخرين مقرنين في الأسفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب لما حساب ملك الدنيا حساب الآن أنا قعنتها لك صار نبي الله سليمان محيالي وكوي الله سبحانه وتعالى هذا منوت الماميو الدون كان الربائن المال وناكسن أي كجاران آخرنا الدون المال وناكسن أي كجاران مركا قفك همومك أنبياء السلاسية هاي waxay doonayaan adduunyada dadka ugu fiican inaan lagu lidin adduunyada oo lagu yasin bal iyagu ay dadka wax siiyaan inay dadka iyagu wax u horsadaan gacantooda iska daaye inay dadka iyagu wax taraan nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waa ki yidhi walyaddu alculyaa khayrun min alyaddi asufla alyaddu alculyaa khayrun min alyaddi asufla gacanta sare ayaa ka wanaagsan oo ka khayr badan midda hoose gacanta sare waxaa weeye waa midda hamigeedu wanaagsan yahay mar walbaba jecel inay dadka wax ku tarto qofka intay wax weydiisan lahayd waxaa laga yaabaa yacni dadka hamigeedu oo daciif yahay inuu mar walbaba uu ku fekero war ninkaas waa shaqaystaahe muxuu ku sii doonaa kolley dadka waa isaga dhowdihiin marna lagama yaabo inuu cabir ah samaysto war adigu ummadda wax ku tar adigu maxaad bixin doontaa ma masjidaad dhisi doontaa intaasoo masaakiin miyaad quudin doontaa intaasoo qaraabo ah miyaad yacni hantidaada ugu deeqi doontaa hadafkaagana xaqiiji bal mar walbaba cabirkiisa uu taagan yahay yaa wax ku siin doona horta hebel waa shaqaystaa waxba kuma siiyo hebel baqaaruu leeyahay kolley zakada wax ma kaa soo gaarsiin doonaa zakada ayuu qaraabada u roon yahayaa la yidhi zakada wax ma kaa soo gaarsiin doonaa mar walbaba hamigiisu waxaa weeye wax ma lagu sii doonaa bis alyaddu sufla uu taagan yahay gacantii hoose waxaa laga yaabaa weligii inuusan ku fekerin adigu wax ma bixin doontaa horta nin suudaaniya wuxuu dhihi jiray maalina wuxuu yidhi ninaan waxaan la raacay taxi macallin suudaaniya kolley maqaaladaas iyadoo meel ku qoranna waan arkay oo nin misri ah oo doctor ahaa oo yacni mawaadiic kala duwan oo tanmiya albashariya ku fiicnaa tanmiya albashariya mawaadiicdaas oo aad uga hadli jiray marka isagu laakiin isagaa isku nisbeynayey macallinkan suudaaniga ah wuxuu yidhi maalinaa nin taxi la raacay uu yidhi taxi ninkii markii aan la raacay ayaan waxaan ku yidhi uu yidhi taxigaan imise sanaad wadatay oo darawlaad ka ahayd markaasuu yidhi 30 sanan taxigan darawalka ahaa markaasaan yidhi uu yidhi taxiga adiga miyaa iskale mise qofaa ugu shaqaysaa wuxuu yidhi taxigan qofaan ugu shaqeeyaa waxaa yidhi yidhi weli cabir ma saartay oo ma ku fekertay taxigan inaad yeelato oo adiga lagu shaqeeyo 30 sano weligaa qalbigaaga ku soo dhacday markaasuu wuxuu igu jawaabuu yidhi ataskharu bi ya zuul kaannaka taciishu fii saxraa gayri saxraa'ina zuulka waxay dhahaan suudaaniyiinta yacni qofkii zuul iska dhahaan nin ba igu jeesjeesi caalamka aan ku noolnahay maana meel kale miyaad ku nooshay adigu adduunyadan kuma noolid miya meel kale miyaa ka timid adiga caalam kale miyaa ka timid waa igu jeesjeesi inaga amase ugu yiri marka wuxuu ka hadlayay hamiga yacni humuumta dadka cabirka meesha ay joogto uu ka hadlayay bal 30 sano maxay ka dhigay hadduu iska niyeysto ilaahayna uu baryo subxaanahu wa tacaala weligay uguma soo xataa yani dadka himadoodu ay aad daciif u tahay waxaaba ka culusba shibhu mustaxiil balla ah inuu meel sareba cabirkiisa saarto xataa u niyeystaa culays ku ah xataa inuu yani niyeysto ayaa culays ku ah marka wuxuu yidhi ma igu jeesjeesiyu yidhi taxigan yeelo ah ma taxigan anigu yeelan karaa wax dhici karaba ma waxaad sheegaysee waxaan suurtagal mustaxiilaad igula hadli marka dadka ninkaas waa iska tusaale laakiin waxaa laga yaabaa inay nagu dhex jiraan dad noocaas u fikera
in ugu dhex jiraan waa iska suurtagal oo tusaale ahaan ninkii hadda waxaa loo badan yahay waxaan u malayn macallimiintu guryo ijaara inay u badan yihiin dad isaga jirjira waxaa laga yaabaa 20 sano in ijaar lagu jiray haddaan hadda isweydiino oo nidhaaho war 20 sano weli nin ma ku fekero gurigan ijaarka aad ugu jirto asaga bal milkiyo iibso ama mid lamida iibso yaa weligii ku fekeray hadda ilaahayna aan runta u sheegno ilahay waana daalacani subxaanahu watacaala ya 20 sano qof ijaar ku jiray waxaa laga yaabaa haddii hadda yani iktishaaf aan samayno oo laysdhex maro oo la yidhaaho waryaha weligii niyeystay 20 sano ijaar ku jiray kan horta milki ilaahay ka bari subxaanahu watacaala hamigaaga ku qabo asbaabna raadi aad ku milkin lahayd ilaahay uu kuu kaalmaynay subxaanahu watacaala yaa niyeystay waxaa laga yaabaa inuu nagu yaraan lahaa ya ama sidii ninkii suudaanigaayoo kale aan dhihi lahayn warnagata waxaad sheegaysa maxay tahy gurigan oo filo lahaa filo intaasoo anigu xirowa oo iska miskiin ah oo daalibilcilmi yeelan karaa marka sideedaba waxaa weeye waxaa la ogaaday humuumta sir weynaa ku jirta hamiga sare inuu qofku qalbiga ku qabto sir weynaa ku jirta oo ilaahay asraartiisa ka mida subxaanahu watacaala maxaa yeele qofka hamigiisu uu weyn yahay waa nooc ka mida tusinaysa kalsoonida ilaahay uu ku qabo subxaanahu watacaala kalsoonida ilaahay uu ku qabo marka ilaahay markuu leeyahay subxaanahu watacaala يعني نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه مركو ليه إن الله يحب معالي الأمور معالي الأمور محو إلهي وجعله قفك معالي الأمور وحوين قبن كرتا يعني عبر كيسو ويهي وحي الدليل أتهي قوة الثقة بالله إن قلبي كيسو كبوح وآد إلهي وكر سنيها قفكاس أسبابتا إلا ضعف الهمة وحكينا يبا وحكمنا كالسوني الدرده قفك إلهي بوسن كو كالسونين سبحانه وتعالى ولذلك تأثير كسامينتا همة العالية أي كل هذا هي قفك بني آدم كا ابن كثير رحمه الله تعالى ودكتهين مي عيسى وحلديه جري إسماعيل ابن كثير ويلا كهر ريي سوى ولا الكيسة أو كهر ريي علمك ضلب كيسة oo isaga weliba ka cilmi badnaa oo aad yani maskaxdiisuna u fiicnayd wiilkii marka odagii waa ka dhintay waa ibnu kathiir aabihiis waa dhintay wiilkii markuu dhintay odaguna aad uu hami sare uga qabay inuu diinta faafiyo intaasoo ajyaalahoo jiilal badan inuu nooleeyo oo diinta uu ku nooleeyo hamigiisa uu ahaa waa ka dhintay odagii marka wuxuu yidhi waxaan niyeysanahu yidhi in sha allah wiil kale ii dhalan doonuu yidhi wiilkaasna meeshii uu xalqada ka fariisan jiray wiilkii iga dhintay ayaan ka fariisin doonaa waxaana ku magacaabi doonaa magiciisii oo ismaaciil isagii oo kaluna ii noqonaahu yidhi arrinkaasna waa ku dadaalaa ilahina waa ii xaqiijinahu yidhi wa ficlan daarat اlayaamu dawrataha xataa xaqaqa allahu subxaanahu wa tacaala umniyatah wa himmatahu alcaaliya dhowr sanaa soo wareegtay wiilaa u dhashay odaygii marka wiilkii markuu soo kobcay halkiiyuu fariisiyey wiilkii hore oo ka dhintay xalqada uu ka fariisan jiray ayuu fariisiyey waxaanu noqday ibnu kathiir raximah llahu tacala sheekhan adoo taqaanaan wiilkii dambe ibnu kathiir uu noqday marka taasi waxay daliil u tahay sir weynaa ku jira hamiga caaliga ilahi waa u kaalmeeya qofka hamigiisu uu aad u sareeyo walidaalika ibnu kathiir raximah llahu tacaala wuxuu ka taariikheeyey saxaabada nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi iyo qeyb taabiciinta ka mid ahaa waa cabdullaahi bnu cumar iyo curwat bnu zubayr muscab bnu zubayr iyo cabdilmelik bin marwan intaasaa wuxuu yidhi waxay ku kulmeen kacbaday ku kulmeen kacbada markay isugu yimaadeen ayaa waxay yidhaaheen nin walba wuxuu yidhi tamani maa kunta tashtahiihi min hadihi اlxayaa nin walba noloshaada waxaad ka ishtahaynaysay bal ha tamaniyo maadaama maanta aanu joogno aqdasu buqcatin min biqaaci اlard
meeshii dhulka ugu nadiif badnayd oo dhulka ilaahay ugu fadliga badnaa nin walba waxaad haminaysay bal meeshan ku sheeg waan ducaysanaynaa wuxuu yidhi muscab ibnu zubayr aniga waxaan rabaa uu yidhi ciraaq weligay waxaan hamin jiray ciraaq inaan madax ka noqdo oon ciraaq ka taliyo taas in ilaahay ii xaqiijiyo ayaan ku ducaysanaynaa iyo gabar yacni carabta ka mid ahayd sukayna la dhihi jiray iyo dalxa waxaan leeyahay caaisha bintu dalxa caaisha bintu dalxa labadaa gabdhood sukayna iyo caaisha bintu dalxa waa dalxat bnu cubaydillaah saxaabigii macruufka ee dhalay labadaas gabdhood oo ugu qurux badan quraysh inaan guursado ciraaqna aan ku darsado bis intaas haddaan helo facala dunya salaam adduunyada allah nabadgel meeshay ka dhacayso ha ka dhacdo adduunya intaa haddaan isku helo bis saas maya waa yahay allah kuu xaqiijiyo hadafkaaga waxaa haddana yacni tamani la yidhi sheekhii la dhihi jiray saxaabigii cabdullahi bni cumar atamana aljanna uu yidhi anigu ilaahay jannaan ka tamanin uu yidhi curwatu bnu zubayr ayaa la yidhi adiguna tamani atamana alfiqha wa nashra alcilm fiqhiga iyo cilmiga inaan faafiyo ayaan anigu tamanin lahaa yuu yidhi cabdullahi bnu zubayr aa la yidhi tamani markaasuu yidhi wilaayat alxaramayn wilaayat alxaramayn ashariifayn bis labadaas inaan anigu madax ka noqdaan rabaa yacni hamiga qofku uu xambaarsan yahay iyo moraalkiisa inta badan nolosha qofka mustaqbalkiisa waa ka soo baxaa inta badan waa ka soo baxaa sidii dhowr sanaa soo wareegtay mid walba ilaahay sidii uu ka dhigay nin walba muscab ibnu zubayr labadii gabdhood uu guursaday ciraaqna madaxuu ka noqday markii dambena ciraaqa lagu dili cabdullahi ibnu zubayr isagana sidii oo kale labadii xaram ba ilaahay wuu u dhiibay ka bacdina xaramulmaka lagu dilay cabdullahi ibnu zubayr haddii curwatu ibnu zubayrna waa ogtihiin taariikhda waa la socotaan min kibaari alfuqahaa ayaa ilaahay ka dhigay subxaanahu wa tacaala cabdullahi bni cumarna waa u rajaynaynaa jannat alfirdows isagana ilahay waa u xaqiijinaya in sha allahu tacaala marka cabdilmeligaa soo maray cabdilmelik bin marwan wuxuu yidhi atamana alkhilaafa alcaama anuu ninkan xaramayn iyuu sheegay kan ciraaq uu sheegay khilaafa caamaan rabaa u yidhi anigu muslimiinta inta ay degto dhan inaan u taliyo wiil yar u ahaa markaas ilahay waa u xaqiijiyey isagana khaliifat lmuslimiin oo dhan uu noqday cabdilmelik bin marwan marka adigoo hamigaaga ama daciif ka dhigoo hoos u dhig ama kor u qaad inta badan boqolkiiba 80 xaqiiquu noqon hamigaagu rajada laga qabo haddaad isdaciifisana meesha taallaa almar-u xayثu yadacu nafsah qofku naftiisa meeshuu dhigo ayuu yaallaa walidaalika humuum اlambiyaa sidaasay ahaayeen nabiy llaahi sulaymaan mulku dunya oo qof u habboon aysan jirin isaga mooye dadkii kale xataa uu ka ilaaliyey aniga bis mulki igu khaas ayaan doonayo yidhi makfirana ilaahi uu weydiistay iyo dembi dhaaf nabiy llaahi yuusuf calayhi الsalaatu wasalaam markii jeelka uu ka soo baxay oo ilaahay uu yidhi falabitha fi sijni bidca siniin jeelkii intaasoo sanuu ku nagaado meesha uu ku daahay oo dulmiga lagu xidhay oo dhibaatadaa uu soo maray oo mar lagu tilmaamay yacni islaantii ay masabidatay oo dulmigii ay ku masabidatay mar ceel lagu riday yacni silsila min alimtixaanaat maa yakhruju min mixnatin ilaa wayadkhulu fii ukhraa dhibaato hadduu ka baxdo mid kalu gelayo nabiy llaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam markii jeelka laga soo saaray ninkii masar u talinayey ayuu u yimid wuxuu yidhi maxaad rabtaa masar jeelkii waa lagaa soo saaray masarna waad joogtaa maxaad jeclaan lahayd maxaad tamanin lahayd waxaa laga yaabaa qof annaga naga mid a haddii fursadda uu heli lahaa inuu dhihi lahaa war halkoo gurina hala ii dhiso bal xoogaana jeebka hala igu rido wax yaroo ciddii aan kusoo salaamo jeebka hala igu rido ma jirto qaala jcalnii calىa khazaa'ini اlard inii xafiidun caliim bal u fiirso hamigaas ijcalnii calىa khazaa'ini اlard wax jeeb la iigu rido maya wax jeeb yar la iigu rido cidda kusoo salaam maadaama xabsiga aad ka soo baxday maya
ijcalnii calىa khazaa'in اlardi inii xafiidu caliim waxaan rabaa dhulka masar oo dhan dhaqaalihiisa inaad ii dhiibto dhulka masar oo dhan dhaqaalihiisa inaad ii dhiibto yani waa mustawa oo markaas oo kale nin loo dhiibay yani wasaara maaliya oo kale mustalax hadda aan naqaano wasaaradda maaliyadda oo dhan ay hoos imaanayso dhulka masar oo la og yahay wax soo saarkiisa webiyada yani leh oo beeraha yani masaaricda waaweyn leh dhulkaasoo dhan uu maamulayo khazaa'inti qaala ijcalnii calىa khazaa'in اlard inii xafiidun caliim weliba mawaahibtiisii soo bandhigay inuu arrinkan xaqiijin karo ahalna u yahay wuu soo bandhigay nabiy llahi yuusuf oo wuxuu yidhi wuxuu sheegtay alamaana wاlcilm inii xafiidun caliim oqoonna waan u leeyahay uu yidhi hawshan inaan maamulo nin amiinana waan ahay oo waxba ka khayaani maayo ummadda rasuul ilaahi ayaan ahay oo ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ilaahay uu ku fadilay masaayaadka faraha badanna waan ka mid ah taasaa marka humuum اlambiyaa fekerkoodu saas u ahaa adduun iyo aakhira qofka shaksiyadda ugu sarraysa inay noqdaan adduun iyo aakhiro walidaalika waxaa la yidhaha alhima alcaaliya marka la leeyahay bini aadamka keliya kuma jiro hamiga sare hamiga liitaana bini aadamka keliya kuma jiro xataa culimmada waxay yidhaahaan xayawaanaadka caadiga ah ayaa waxaa iskhilaafsan muraalkooda iyo hamiga ay xambaarsan yihiin waxaa la yidhaahaa alguraab laa yaqac ilaa calى اljiyaf wالsaqru laa yaqac ilaa calى اlxay baalkan dukaha la yidhaaho wax baktiya maahana wax kale inuu isagu shaqaysan karo maga aaminsana uus neefoo meel maaragtaa yaalla iyo markuu quraac ama qadar raadsanayo uus neefoo meel yaalla iyo neef baktiyoo bahal kaleo laga yaabo isaga inuu ka daciifsan yahay oo maaragtaahay dilay bahal meel yaallo waa hore iska uray iyo xaasuu ka daba warwareegaa kuma fekero weligii war wax qabso oo wax wanaagsan iyo quud wanaagsan waad ku noolaan kartaa culimmadu waxay yidhahaan ma lahan waa geed hamigiisu aad iyo muraalkiisu u dhinsan yahay walidaalika mahmaaha waxaa jirta laga sameeyo oo waxaa la yidhaahaa dadkan walaalaheena heer aalta jubba waxay yidhaahaan hinshareera lankii hor dareerkiis naqada haara amuuma horaasi leh waxay yidhaahaan bahalkana waxay u yaqaanaan hinshareeray u yaqaanaan hinshareera dukaha annagaa u naqaan marka waxay dhahaan hinshareere lankii hor dareerkiis naqado haar amuuma horaasi leh yacni ulajeedada waxaa weye bahalkaas dukaha ah lankii hor dareerkiis naqado qofka uu yacni hogaamiyo wa duko i hogaami qofkii tidhaaha haar aamuma horaasi isagana marka dambe saxar oo cunaa iyo xar ilaa meel carfaysa ma tago meel udgeysa maba tagoba marka ulajeedada maxay ka wadaan qof hamigiisu iska dhinsan yahay hadduu adna yacni saaxiib kula yahay ood la saaxiibto qof hamigiisu daciif yahay adigana haar aamuma horaasi adna haar aamuma horaasi adigana waktigaasa dul fadhiya iyo noloshaas xun weligaa cumrigaa ku dhamaysan walidaalika marka la daraaseynayo mawduucan yani alhima alcaaliya marka la daraaseynayo waxaa la yidhaha asbaabta lagu gaari karo waxaa ka mid a in laga fogaado dadka aad ku aragto hamigooda inuu daciif yahay suxbadana loo jaro maxaa yeelay qofka saaxiibkaa wuxuu sameeyaa barmaja salbiya waxaa kugu dhacaaya falaashiyo oo qalbigaaga ku dhacaaya mar walbaba oo hamigaaga dilaya qofka haddaad la saaxiibto waxaad is leedahay war waxaan qabsanno war magaalada aan wax ka qabanno ummadda waxaan u qaban karnaa sheekh dagaalaa lagu jiraa dagaalaa socda hebel meeshaana la dhigay saaxiibka naga horreeya meeshaasoo ku dhintay hebel meeshaasoo ku dhintay mawduucan nin hadda ka hor bilaabay afaraa bilaabay afartiina waa la dilay bes guryaha aan isku xirno salaadaas haddaan duka karno bes dadna waxma baran karno annagana xataa waxma baran karno salaadaas haddaan dukano bes waa la barmajeeyey waa qunfulanyaha miskiinkaas marka maxaa yeelay bii-ada nafteeda waa laga qaataa hamigii moraalka dilan bii-ada iyo dadka kugu hareereysan waa laga qaataa way kugu sameeyaan hadda ka hora waxaa la yidhaha tusaale cajiib ay usoo qaataanoo gorgora waxaa la yidhi ninaa ukun gorgor uu soo ugaartay
markaasuu dooro hoosta ka dhigay wuxuu isleeyahay dooradani ukuntaa gorgor way yani siday u fiiqdo doorooyinka kale u fiiqi doontaa ukuntii marka gorgorka wa ficlan dooradii way fiiqday waxaa ka soo baxay bahal feero weyn oo xoogaa doorooyinkii ka garba waaweyn oo ka feero weyn doorooyinkiisu iskala lafalafaystaa oo qashinkaas ilaa dooro iska gurubsanay moogta qashinkii gorgorkii wax ka gurubsadaa maalintii dambe waxaa la yidhaha gorgorkii wuxuu arkay gorgorro kale oo cirka haadayo yacni bahashan sagaarada la yidhaha beerkeeda iyo iska sito wax macaan badan iska cunaaya markaasuu kuwii kale wuxuu ku yidhi war sida kuwaan oo kale maan ku noolaan dooroyihin kuwaan hilibay sitaan subax walba hilibay nala dul marayaane hilibkan oo kale maan gaarno markaas shibshib kuwaas haddaan aragno waana cunaan annaga masaaxo hadda aragtid hulkaaga gal luuqaaga gal hilib iyo kuwaas safkooda aan galo ma jirto taas waa lagu cunay waa iska cararay miskiinkii waana gorgorade markaasuu dooro la nooliyo la jooga waa la barmajiyey sidii loogu wadaa dooro laga dhigay isna dooraa laga dhiga isna humuumtiisii dhammaa waa la dilay humuumtiisii dhammaay waa la dilay mawaahibtii rabbaaniya uu xambaarsanaayo dhan waa laga dilay waa iska qarqaraabtay waad aragteenoo dooradu way jartaa markay weynaadaan doorooyinku jiljilayaashu markay soo kobcaan kii u soo dhawaada gow ay siisaa waxay ula jeedaa qaraabo marka qaraabo gow kii u soo dhawaada madaxay gow ka siin ma qaraabatid iga tagay leeda marka say gow u siinaysay midba meel ku cirdaynaysay asagiyaa soo haray gorgorkii keligiis wuxuu marka muncasil ka noqday bii-ad barnaja salbiya ku samaynaysa oo niyadda ka dilaysay uu gooni ka noqday keligiisuu noolaaday subaxii dambe wuxuu arkay gorgoradii oo haddana korkiisa maraayo hilib iska wata iyo beer kuwii wuxuu yidhi ku barmajaynayo ma joogaane bal saaka isku day inaad haadi kartid labadii baalu isku dhuftay waa haaday kuwii iska daba raacay gorgoradii sagaaray dharbaaxay ku dhufteen beerkay kala baxeen asna beerku kala baxay war saaka wax macaanaadba ku quraactuu yidhi war balaayada ilaa awooddaana ilaahay ku siiyey ilaa balaaya bii-a xuna waxaad ku dhex noolayd wax matarta ahoo wax maqabato ahoo jinni ah jinnigaasaa ilaa ku heystay noloshiisiisuu iska galay maalintii dambe waxaa la yidhaha markuu noloshiisii fiicnayd arkay uu kuwii barmajaynayey isaguna mid fiican ma noqone uu kulli wada cunayaa la yidhi doorooyinkii baabi'iyey waxaanaad iga xayirayseen uu yidhi waxaanaad iga xayirayseen noloshan marka yacni culimadu waxay yidhaahaan bii-ada hima alcaaliya iyo suquud اlhima labadaba saameyn weyn waxaa ku yeelan kara bacda hiqati biاllah bii-ada qofka uu ku dhex noolyahay dadka kugu hareeraysan hadday aaminsan yihiin inaan waxba la qaban karin macnaheeda noloshaada dhan halkaasaad fariisan adigan waxba ma qabsan kartid walidaalika waxaa la yidhaahaa xayawaanaadka sidaasay hamiga ugu kala duwan yihiin bini aadamku sidaasa iyaguna humuumtoodu ay u kala duwan tahay lidaalika hadda ka hor waxaa lagu yidhi nin dufayli ah dufayliga waxaa lagu yidhi hamigaaga cabiraa la yidhi hamigaaga cabiraa la yidhi yacni waxa aad doonayso adduunyadan inaad ka xaqiijiso 1 2 3 noo dheh kabacdina aad doonayso inaad iska dhimato hadafkaa haddaad gaarto dufayliga waa isla naqaana u malayn waa midka oo yani guryaha aan looga yeerin kalundiga waa kalundiga naqaan kalundiga guryahaan looga yeerin maaragta iska gelaayo oo si xiilaha ku gelaayo haddii xoog waayo xiiluu ku gelaa dufayligaasa waxaa lagu yidhi noloshaada ka waran maxaad rabtaa inaad xaqiijiso kabacdi inaad iska dhimatid haddaad doontid markaasuu wuxuu yidhi dufayligii unaasun taskunu suduuruhum wa tagli quduuruhum walaa tuglaqu duuruhum aniga waxaan rabaa yidhi dadka intaan haddaan isku helo facala dunya salaam aan iska dhinto addunya haddaan helo inta waxaan rabaa uu yidhi unaasun taskunu suduuruhum dad horta qalbigoodu degan yaho markaan meesha soo galo oo wax la cunayo aan qalbiga iga xamanaynin oo igu farxayo markaan meesha soo galo wa tagli quduuruhum dherayaalkoodana iska karayaan oo dheriga aan la daminayn 24 saac dheri uun shidan iyo wax dul saaran aad u imaanayso walaa tuglaqu duuruhum guryahooda iyo albaabadoodana aan la xiran albaabku iska furnaado mar walbaba dufayligii walba iska soo galo
intaas haddaan helo facala dunya asalaam intaas hadday soo kay toosto waxba kale ma rabo yidhi addunya wax kale kama rabo anugu waa shaksi marka hamiga uu xambaarsan yahay uu aad uu daciif u yahay lidaalika waxaa lagu yidhi mid kaleoo muqani ah oo qinaha iyo heesaha jeclaay ayaa waxaa lagu yidhi adigana hamigaaga cabir waxa aad yacni cabirkaagu uu yahay humuumtaadu ay tahay markaasuu wuxuu yidhi majlisun yaqilu hadaruh wacuudun yasfuu wataruh wa quluubun tafhamu maa aquul saddex shay haddaan isku helo facala dunya salaam wey majlisun yaqilu hadaruh goob majlis sidan oo kale la isugu yimid oo buuqiisu yar yahay shib leeyahay ilaa heestaa la qasi moogta haddii la hadlayo horta buuqiisa arkaanta waxaa ka mid a buuqiisu inuu yar yahay wa yasfuu wataruh wacuudun yasfuu wataruh iyo bahalkan kuwa heesaya loo garaaco kabanka biyaa la yidhaha bahalkan loo garaaco oo codkiisu saafi yahay codkiisu nadiif uu yahay wa cuquulun tafhamu maa aquul iyo dad caqli ahoo waxa aan leeyahay fahmaya oo markaan heesayo heesteeda si fiican u fahmaya oon iyaga isla sheekaysanaynin oo qalbigoodu xaadir yahay intaas haddaan isku helo bis wayu yidhi anna intaa haddii aan helo bis wayu yidhi abunawaasaa la yidhi xaqiiji adigana ahdaaftaada cabir abunawaas wuxuu yidhi inama alcayshu samaacu wamadaamu wanidaamu faidaa faataka haada facala adunya asalaamu wuxuu yidhi aniga hamigaygu waxaa weeye samaac inaan dhegaysto waxaa heesta ah iyo galaaskii khamrada ahaa iyo kuwo aniga sidaydoo kale igu hami ah oo isku shaqanahay inay meesha ila fadhiyaan fa idaa faataka haada facala adunya asalaamu intaan hadduu kaa tago addunya iska macsalaamay yidhi ka dhima haddaad doonta intaan haddaa ku weyso addunya way dhammaatay marka hadafka ulajeedada waxaa weeye qofku mar walbaba hamigiisu shaksiyadiisa uu ku cabiraa inta hamigiisa uu la egyahay ayaa haddana uu la egyahay waxqabadkiisa dadka hamigoodu aad ugu sarreeyey waxaa ka mid ahaa oo mar walbaba hadda wanaag walba namuudaje tusaalaha koowaad ahaa nabigeena moxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh khayr ma jiro oo la sheego ilaa isagaa qudwo u ah ilaa isagaa ra'iis u ah ilaa isagaa miftaax iyo furo u ah nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh walidaalika nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi axaadiis fara badan ayuu wuxuu nagu booriyey hamigu inuu sarreeyo waxaa ka mid ah xadiiskii bukhaari uu warinayey idaa sa'altum allaha aljanna fas'aluuhu alfirdows alaclaa haddaad janno ilaahay weydiisanaysaan midda sare weydiista tan ugu sarraysa firdows alaclaa su-aasha maxaa leey jannooyinku way kala sarreeyaan nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ma dhihin janno un ilaahay iska weydiiso tan ugu sarraysa weydiisuu yidhi muxuu nagu tarbiyeynaa marka nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh wax kasta meesha ugu sarraysa inaan ka noqonno wax kastoo wanaaga adduuniya aakhiro lambarka ugu sarreeya inaan hamigeenna ku qabanno markaa kabacdina asbaabtii aan ku xaqiijin lahayn aanu galno nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa u yimid hadda ka hor laba ninaa u timid waa xadiiska bukhaariya warinaya waa min xadiisi cadiy bni xaatim laba nin ayaa u timid waa xilligii islaamku uu aad yacni tabardarada iyo dacfiga uu ugu jiray cahdu maka oo nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi saxaabadiisa ay aad u yaraayeen fa shakaa rajulun ilayhi alfaaqa ninaa nabigu wuxuu u sheegtay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi faqriyaa jira warqadiina waa laysoo hoos dhigay waktigiina waxaad moodaa inuu gabagabo yahay mawduucuna intan inaan ka ballaariyaan jeclaa runtii tusaalooyin badan ayaa i harsan marka sheekhayga ay ugu daray 10 daqiiqo waaya marka nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh nina u yimid markaasu wuxuu sheegay faqri iyo dhibaataan nahaysuu yidhi rasuulka ilaahay meeshan waa ku baaba'nay maka dhibaataan nahaysa waa nala dilaa waa nala daciifsadaa waa nala ihaanaystaa nin kalaa haddana yimid ninkii isagoo meesha fadhiya fa jaa'a rajulun aakhar fa shakaa ilayhi qadca sabiil nin kalaa yimid wuxuu rasuulka ilaahay oo jidkii ma mari karno jidadkii la mari lahaa waana la ka gooyey markaasuu nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh muxuu yidhi
همنiga nabiga salى الlaه وsلم وbaaرك عalيه iyo dadka siduu hmnigooda kor ugu qaadayay yaa cadي in طاaلت bika xayاة latarayana الضaciina tartaxilu min الxiira xatىa taduufa bاlkacbة laa تkhaafu أxadا ilا الlah walain طاaلت bika xayاة latftaxuna kunuuza kisrى wuxuu yihi nabiga salى الlaه وsلم وbaaرك عalيه faqrigaa nahayo iyo ammaan daraa nahaysa ma leedihiin noloshu hadday idinla dheeraato waxaad arki doontaan xiira waa ciraaq gabar keligeeda inay ka soo safarto ayadoo beytka ilaahay xaj u soo doonanaysa laa takhaafu axada ila allah bal fiir xaaladda lagu jiro iyo meesha uu ka hadlaayo nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh qof ay ka baqayso gabadhaas aysan jirin waxaad kalood fakrigan aad sheeganaysaan arki doontaan haddii noloshu idinla dheeraato lataftaxunna kunuuza kisraa waxaad la wareegi doontaan ood furan doontaan kaydadka boqortooyaalka adduunka ugu weyn kisra wuxuu joogay maqaamka hadda maraykan uu joogo maraykan sida looga haybeysto wale maraykan miyaa liiska igu daray bis waa i dhamaatay dadku ay leeyihiin marxaladaasoo kale uu kisra joogay waa ayagoo hadda lagu yidhi adigoo nin miskiin oo iska xiray waa lagu yidhi kunuusta oo maraykan aqalka cadaad furan doontaa lagu yidhi oo kale maxaad dhihi lahayd wadaadiiho naga daa khayaalka lataftaxuna kunuuza kisra boqortooyada kisra kunuusteeda dhan aad la wareegi doontiin uu yidhi nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wa ficlan mucjizaadka nabiga ka mid ahayd sala allahu wasalam wabaaraka caleyh ilaahay waa xaqiijiyey marka hamiguu dhisaayey nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh saxaabadu u dhisaayey marka waa sidaas oo kaleo qofku hadduu kuu yimaado daalibulcilmi ah ama qof xerow uu kuu yimaado dhibaato uu sheego dhibaatadii ha ka qayb qaadan inaad usii kordhisee hamigiisa kobci waxan waa laga baxaya adhe waxan waxba ma aha caqabaadkan waa ka gudbaynaa waxaad arki doontaa adigoo jamaaco dhan hogaaminaya oo ra-iisul jamaaca ah oo diinan yacni wakinan wax kasta ku hogaaminaya ad arki doontaa jamaaca hanti iyo diin iyo wax walba hogaanka u haya ayaad arki doontaa ha baqin xaqiiji hadafkaaga oo sidaas in looga daydo nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh walidaalika imaam axmed wuxuu ku wariyey kitaabkiisa musnadka ah nabigana salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi in uu yihi cabdun razaqahu اllahu cilman walam yarzuqhu maalan addoon oo waxaa jira addoommada ilaahay ka mid oo cilmi ilaahay siiyey laakiin hanti ilaahay uusan ugu darin fahuwa saadiqu niya yaquulu low ana lii maalan lacamiltu bicamali fulaan fahuwa biniyatihi faajruhumaa sawa xadiiskaa tirmidiguna sunankiisa ku wariyay imaam axmedna musnadkiisa nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu yidhi addoon waxaa jira ilaahay uu cilmi siiyey laakiin maal uusan ugu darin laakiin hamigiisa iyo cabirkiisa wuxuu saaran yahay dadka maal kale uu ka cabir ballaaran yahay oo wuxuu leeyahay low ana lii maalan lacamiltu bicamali fulaan haddii maal aan yeelan lahaa intaasoo masaajidaan dhisi lahaa intaasoo masaakiinahan quudin lahaa sida hebelba intaasoo masaakiina uu quudiyo fiiri ma dhahayo cilmigaa ilaahay isiiyey bal xoogaa aniga waxa lay siiyo cabirkiisu ma ah yaa wax isiin doona ma ah intaasoo masaajid inaan dhiso intaasoo masaakiin aan quudiyo saasuu cabirkiisu yahay niyada uu ku qabtay fa huwa biniyatihi fa ajruhumaa sawa wuxuu yihi nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi intaasoo masaajid qofkii dhisay ayuu ku ajiriya ninkaas aakhira ajirkeeda ajirkiisa wuu leeyahay saxiifadda acmaashiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta aakhire uu ka siin lidaalika waxaa kaloo jira tusaale kale oo cajiiba isaguna oo imaamu alghazali raximahu llahu tacaala kitaabkiisa ixyaha ah uu ku sheegay tusaalahaasi wuxuu yahay nina wuxuu yidhi imaamu alghazali raximah llahu tacaala ayaa wuxuu soo maray bacaad weyn oo buur ah ayuu soo maray waa xilli gaajo daran ay jirto markaasuu ninkii wuxuu yidhi low kaana hada طacaama laqasamtuhu bayna الnaas balinkaa hamigiisa fiiri bacaadkan yaa cunto ka dhiga dadkan waddankan dhibaatadu ka jirto iyo gaajada ka jirta aan u qaybin lahaa ilahay hadduu cunto iga dhigi lahaa hor fiirso hamigiisa ma dhahayo yaa xoogaa qoyskayga in maaragtaahay ku filan cunto iga dhiga ma ah ummadoo dhan uu rabaa inuu wax u taro ummadoo dhan uu rabaa sabab ilahay inuu uga dhigo majaacada in uu ka qaado isagu ilaahay marka subxaanahu wa tacala imaam alghazali wuxuu yidhi fa awxa allahu ilaa nabiyihi
anqul lahu ina allaha tacaala qad qabila sadaqataka. nabigii xilligaa joogo ninka reer banu israa'iil oo ahaa nabigii xilligaa joogu ilaahay wuxuu ku yidhi u sheeg ninkan waxaad ku tiraa sadaqadaadii waa la aqbalay, bacaadkaasoo cunto ahaa diiwaankaaga kugu qorani ogow. muxuu ku mutaystay? sow hima alcaaliya ma ah, sow muraal sare ma ah wuxuu ku helay. miskiin muraalkiisu dilan yahay hadduu soo mari lahaa meesha waxaasoo dhan waxaa laga yaabaa qalbigaba inuusan ku qabteen, maxaa yele waa qof dhintay, shaksiyaddiisi ay dhimatay. marka ma rabo inaan 10kaa daqiiqo waa ii dhammaatay ka badan aan sii cuno. kulley mar kale insha allahu tacaala mawduucan mawduuc aad u ballaaran waayo ayna fiican tahay inaan ka wada faa'iidaysano. mar kale inoo ahaan doonta. hada billahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu. كما ذاق الكفر جام الحمم شامخ هد الليالي صبره وسنا عينيه مرء الهمم ثورة